jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa xukuumadda Somaliland ku taageeray soona dhaweeyay in guud ahaan dalka Somaliland laga saaro dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya ee aan u dhalan Somaliland, waxayna xukuumadda Somaliland ku bogaadiyeen ka saaristii magaalada Laascaanood ee laga saaray dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. guud ahaanba jaaliyadda reer Somaliland ayaa waxay aad u soo dhaweeyeen xukuumadda Somaliland ku garab istaageen in dalka Somaliland laga saaro dadka ajaanibta aan u dhalanin si loo adkeeyo bay yiraahdeen amniga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. waana tallaabo wanaagsan oo ay qaaday xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland. sidoo kale jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Jabuuti ayaa waxay wax lala yaabo ku tilmaameen dad dhawaanahani baraha bulshada ka hadlayay kana soo horjeeday ka saaristii magaalada Laascaanood laga saaray dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya, iyaga oo ku tilmaamay in ay yihiin cadowga Somaliland. warbixintan kooban waxaa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti idinka soo diyaariyay telefishinka qaranka Somaliland. arrintan la sheegay ee Laascaanood iyo laga hadlay dadka la taxriibayo waddan walba nabadgelyadiisa iyo ammaanadiisa isagaa u xaq leh inuu dadkiisa ilaashadana waa waajib oo mas'uuliyad baa ka saaran dawladda inay dadkayga ilaashato dalkayga ilaashato. dawladda Somaliland waxaan u sheegaynaa inay dadka iska saarto meel walba la joogo. Yurub baa la iska saaraa, Mareykan baa la iska saaraa, Ingiriiska la iska saaraa, Jarmalka la iska saaraa, Sweden baa la iska saaraa, Jabuuti aan ku noolahay baa la iska saaraa. aan la shaqeynaa dawladdeeda oo garab joogsan. dadkan Facebook-da ka hadlayay xukuumadda ku qaldan tahay iyaga khaldan. war dadkaasi waa iska hadlayo in hiiraa la yiraahdaa ay nin walba dalkiisa socday nin aan dalka lahayn baa wax dibadda ka hadlaya ay adan nabadgeliyaan leenahay nin walba deegaankiisa dalkiisa baa ka adkaado ay anaga Facebook iyo YouTube ninna nadar waxba naga ma qaadayo ay yaa la isku daarin adag meesha dawladda ka talisa dadka u ballan qaaday oo dhaaratay marka abayaan waxba lagu daalin baa dawladana waan ku taageersanahay hiil hore waan la garatayn. xukuumadda Soomaaliland waan ku raacsanahay qaabkan ay dadka dhaabayso waana ku taageersanahay wixii amni darro waddanka ka wada inay ka saarto wixii amniga waddanka wax u dhimanaya in laga saaro oo banaanka la dhigo. marka waxa jira dad badan cadawgeena oo internetka ka hadla oo arrinkaasi ka soo horjeestay maxaa dadkaas ka leedahay? waxaan ka leeyahay 85 qof meesha lagu dilay ha laga hadlayaan laga hadlin dadka la dhaafay kuwii dhintay baa ka mudan in wax laga sheego. ku dhintay Laascaanood lagu laayay ayaa ka horeeya horta inta laga hadlayo kuwa la dhaafay. dawladdu waliba iyada og waddankeeda sida maslaxadu ugu jirto sidaa darteed anigu waxaan u arkaa dawladdu sida ay u aragto ammaankeedu ku jira inay u shaqeyso wixii dhibaato wada waa in la iska qabtaa si toos. dawladda Soomaaliland waxa ku raacsanahay arrinka ay imika ku dhaqaaqeen ee dalka in ay ka tirtiraan ay ka raafaan wixii waddanka dhibaateynayaba waan ku raacsanahay dawladda Soomaaliland iyo madaxweynaheegaba waxaan leeyahay dad kale iyagu way qaldan yihiin waxaan leeyahay waa dad aan wadaninimo dhibay aan waxba ka garanay Soomaaliland aan waxba ay war wahayaan aan dantooda u eeganaya laakiinse waxaa leeyahay ninkii danta eegaya Jamhuuriyadda Soomaaliland dibtii loo soo maray ee waxyaabaha noocan oo kala ma qaadan karaan ayaa idin leeyahay anagu ma qaadan karo moobil. maxamed jaamac waale warbaahinta qaranka Somaliland Jabuuti.